soo dhawaada waxa inoo bilaabanaya wajigii labaad shirka sida la idin sheegay kaasoo aan ilaahay ka rajaynayno inuu noogu dhammaado guul waxaan u mahadcelinaynaa guddiyadii kala duwanaa oo nagala shaqeeyey soo dhoweynta iyo qabanqaabada waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa ergadii nooga timid galmudug hadda ka hore waxay maqasheen 2016 farmaajo ii geeya hadda galdagob ii geeya dhacday markaad tidhaahdaan nabad baan goosanay annaga dhexdayada iyo Soomaali annagoo waliba habargida wax la oranayaa haye dadka war bay sugayaan marka annaga halleena waxaan leenahay war wallahi waa runtood intaas aynu ku daraynaa oo idinkuna ma la waafaqsantiin waa la waafaqsanahay marka intaas aad u baahantiin maanta dadka Soomaaliyeed maanta waa daalay dhibaato waa ka soo daalay muddo dheer ku jira 50 sano ka badan daalkaas waxa la rabaa in ay waadagayaan dadka maanta madaxda ka fursad bay haystaan xilku raba qofku hayo ama degmaha joogo ama madaxweynaha ahaado fursadaas inay ka faa'iideystaan dadkana qofkii ragaha fursadda ka faa'iideystaan nacaska waa ka dhuntaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa annaga nacasi inuusan naga dhigin oo intayada maanta magacyada mas'uuliyadda ku fadhida aan noqono dad rag ah oo ka faa'iideysta fursadaas oo dadka daalay oo degmada u baahan la dego aan gobasho u xaaro oo nabad kaga shaqeyno special marka anagu dumarnaay nabadda waxay noo tahay muhiim waayo waxaan ku qurux badanna inaan la bisano waxa sabab ah waxa way nabadda inaan wax dhalno oo wax korsano waxa sabab ah nabadda marka nabadda insha Allah waa la adkeynaa dumarka naftigooda waxay ku leeyihiin waxba kuma leeyihiin ma dhahayno waayo ninka qoriga sita gabar baa dhashay odayga abaabulaya islaamka guriga u joogta marka gabdhaha naftigooda waxaan leeyahay war odayaasha uu qaato oo nabadda laga wada shaqeeyo insha Allah bidmilaahi ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu Allah aan istaagan karino waligood iskabaday ku hadlaya afka labada dawladood ee xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya galmudug iyo Puntland idin bala qaadayna shacab ahaan inaysan dhici doonin inaad aragtaan labada maamul oo qoryo waaweyn isugu soo guranaya inay u kala heeliyaan geel kala dhacay hadii Alla idin waxaan rabnaa dadkuna inay taa ka duulaan oo ku tala galaan hadii gabdhuhu ballan qaadeen inay khasnadahooda xiranayaan maamuladuna khasnadahooda xiranayaan qoryahoodana waa xareysanayaan marka waxaa la rabaa taas inaynu ka wada shaqeyno gogolaha dhimanna laga shaqeeyo hadii la haydmo aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkuna waa inoo furan yahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa natiijo khayr qabtay inaynu ka soo baxdo assalaamu calaykum